warbixin ururka xasaradaha adduunka uu ka soo saaray xaaladda siyaasadeed ee cakiran ee ay xilligan u wajahayso Somaliland ayaa lagu bilaabay walaaca laga qabo in xasiloonidii ay Somaliland ku soo caanamaashay muddada badan ay halis gasho. xasiloonidii ay sida adag ku heshay Somaliland waxay wajahaysaa khatar ayaa lagu bilaabay warbixinta. waxaa kale oo warbixinta lagu yidhi November iyo December ayaa la filayay inay qabsoomaan laba doorasho oo muhiim ah, mid lagu dooranayay madaxweynaha iyo tii lagu soo dooran lahaa ururada siyaasadeed ee u gudbayay xisbiyada liisanka haysta. laakiin ta hore dib baa loo dhigay, taasoo keentay ismarin waa la xidhiidha jadwalka kala horreysiinta doorashooyinka. xisbiga talada haya iyo xisbiyada mucaaradka ayaa mid kasta waxa uu dhankiisa ahmiyad u arkaa ta soo horreynaysa. xaaladda ayaa iyadu mar horeba rabshaday isu beddeshay bishii August kadib markii ay isku dhaceen dibadbaxayaal mucaaradka taageersan iyo ciidamada dowladdu, taasoo keentay dhimashada 5 qof. mucaaradku waxay ku anjabeen inaanay aqoonsan doonin xukuumadda uu hogaaminayo Muuse Biixi marka la gaadho 13 November, taasoo ahayd maalintii u qorshaysnayd in loo dareero doorasho madaxtooyo ka hor intii aanay golaha guurtidu muddo xilaad 2 sano ah u kordhin xukuumadda. warbixintu waxay carabka ku dhufanaysaa si Somaliland looga badbaadiyay khatar amni in daneeyayaasha caalamku arrintaas u farageliyaan oo dhinacyada isku soo jiidaan si afkarad looga gaadho khilaafka jira. warbixintu waxay dib inoo xasuusinaysaa jidkii dheeraa ee Somaliland soo martay. waxay xusaysaa in tan iyo markii ay ku dhawaaqday la soo noqoshada madaxbannaanideeda ay ku tallaabsatay tallaabooyin door ah oo la xidhiidha dib u dhis siyaasadeed, mid dhaqaale iyo mid bulsho si ay u hesho maamul shaqaynaya. dal aqoonsaday ma jiro, laakiin daneeyayaal badan ayaa ku dhiirigeliyey dhismaha haykalkeeda dimuqraadiyadeed. warbixintu waxaa kale oo ay leedahay muranka iyo khilaafka haatan taagan waxa uu carqalad ku noqon karaa xasiloonida iyo in Somaliland ay hore ugu sii socoto jidkii dimuqraadiyadeed ee ay haatan ku taagnayd. warbixintu waxay xudunta khilaafka haatan taagan ku tilmaantay mid soo bilaabmay sanadkii hore ee 2021, waxaanay ku sheegtay khilaaf la xidhiidha dhanka jadwalka. madaxweyne Biixi iyo xisbigiisa ayaa ku adkaysanaya in doorashada ururadu ay ka soo horeysato madaxtooyada, halka taalidkeeda ay xisbiyada mucaaradku ku adkaysanayaan in doorashada madaxtooyadu tahay ta soo horeynaysa. marka laga yimaado dhanka sharciga, fursado siyaasadeed ayay mowqifyadoodu ku salaysan yihiin. Biixi wuxuu u muuqdaa inuu rumaysan yahay in qabashada doorashada ururada ay ku jirto fursad lagu soo saari karo xisbiyo socodbarad ah, taasoo ka caawin karta inuu kursiga sii fadhiyo. xisbiyada mucaaradku dhankooda waxay u arkaan in haddii ay aqbalaan doorashada ururada uu rabitaankooda gaadhista madaxtooyadu uu muran gelayo, gaar ahaan xisbiga wadani oo kulmiye kaga adkaaday doorashooyinkii isku sidkanaa ee wakiilada iyo deegaanka, taasoo rajo gelisay inay sidoo kale ku adkaan karaan doorashada madaxweynaha. warbixintu waxaa kale oo ay sheegtay in nidaamka Somaliland aan looga baran in doorashada ururada ay ka soconaato tii ay ku sidkaneyd oo ahayd doorashada golaha deegaanka, taasoo halkii xeer jidaynaya qaabka cusub laga sugi lahaa inay soo saaraan golayaasha sharci dejintu ay beddelkeeda xukuumaddu howlgelisay nidaamka diiwaangelinta ururada cusub. tallaabooyinkaas xukuumaddu qaaday oo dhadhamaysay inay xisbigooda u danaynayso ayaa ka cadhaysiisay mucaaradka islamarkaana soo dedejisay dibadbaxyadii bishii August. dabayaaqadii bishii Sebtembar ayay guddida doorashooyinku sheegeen inay u baahan yihiin 9 bilood oo ay doorashada madaxtooyada ku qabtaan, taasoo ku beegan sanadka 2023. golaha guurtidu halkii ay ka raaci lahaayeen soo jeedintii guddida doorashooyinka waxay taa beddelkeeda xukuumadda u kordhiyeen 2 sano, taasoo doorashada madaxtooyada u riixaysa ilaa November 2024. guurtidu waxay qudhooda isku kordhiyeen 5 sano iyadoo ay jirteen muddaxiloodkoodii 6 sano ku sharciyeysnaa uu dhammaaday sanadkii 2003. dhanka kale waxay ka aamuseen waxa laga yeelayo doorashada ururada. go'aankaas guurtida ayay diideen xisbiyada mucaaradku, iyagoo sheegay in aanay aqoonsaneen xukuumadda wixii ka dambeeya 13 November, inkastoo aanay sheegin tallaabada ay qaadayaan wixii ka dambeeya muddadaasi. warbixintu waxay sheegtay in si khilaafka loo soo afjaro hogaamiyayaasha ganacsatadu bishii August soo jeediyeen in labada doorasho mar la wada qabto, arrintaas oo ay soo dhoweeyeen golaha wakiiladu, laakiin guurtida iyo madaxweynuhu ay ka soo horjeesteen. warbixintu waxay sheegtay in 3 qodob oo isbiirsaday ay sababeen isku tanaasul la'aanta haatan ay dhinacyadu muujinayaan. qodobka koowaad waxay xustay in hogaamiyayaasha siyaasadeed ee labada dhan uu mid walba rabo inuu libinta la hoydo. madaxweynuhu wuxuu u muuqdaa mid ku dhagan go'aankiisa oo raba in sidiisa loo qaato. mucaaradkuna waxay aaminsan yihiin maadaama murankii 2017 ay dhankooda tanaasuleen inaan tanaasul ku hadhin. arrinta waxaa garab socda fadhiidnimo hay-adaha dowladda la xidhiidha sida golaha guurtada oo u muuqda mid aad uga hoos maray kaalintii uu lahaan jiray.
taasoo uu sababay cidda guddoomisay iyo xukuumadda oo rabtay inay safkooda ku soo faylaan. qodobka labaad ee tanaasul la'aanta warbixintu waxay la xidhiidhisay doodda beelaha. waxay xustay in xisbiyada iyo reeruhu isku tidacan yihiin oo beeliba xisbi dabada ku hayso. waxay tusaale u soo qaadatay beesha Garxajis oo loo arko inay sidaas u yihiin xisbiyada mucaaradka ah ay markan ku doodayaan inay xaq u leeyihiin madaxtinimada Somalilan maadaama afartii madaxweyne ee dhowaan xilka u kala dambeeyay ay ka soo jeedeen beelaha kale ee Somalilan. beesha Garxajis waxay u arkaan mowqifka Biixi ee furista ururadu mid uu ku kala daadinayo hanka beesha ee ah inay kursiga gaadhaan. sidaas darteed odayaasha beeshaasi waxay dhowaan hoosta ka xariiqeen inaan deegaanadooda doorasho urur ka dhacayn haddii aan hogaamiyeyaasha saddexda xisbi tala midaysan ka gaadhin jadwalka doorashooyinka lagu muransan yahay, ayaa warbixinta lagu yidhi. qodobka saddexaad ee warbixinta xustay inuu tanaasulka sii murginayo waa mid la xidhiidha arrimo dhaqaale. sannadihii dambe Somalilan waxay helaysay maalgelinno dibadeed sida maalgelinta dekedda Berbera iyo jidka isku xidha Berbera iyo Itoobiya oo ay malaayiin doolar ku maalgelisay shirkadda DP World oo ay sidoo kale wax ka taageereen dalal kale oo ay UK ka mid tahay. maalgelintaas oo dhaqaalaha kor u qaadaysa. sidoo kale maalgelino kale ayaa jira oo ay sameeyeen daneeyayaal kale oo dibadeed oo ay soo jiidatay bogcadda muhiimka ah ee ay Somalilan ku taalo iyo xidhiidho kale oo la sheegay inay qaarkood ku kasbatay mowqifkeeda ka soo horjeeda China sida xidhiidhka ay la samaysatay Taiwan. dhaqaalaha meelahaas ka imanaya ayaa loo arkaa inuu hoos u dhigay in xukuumaddu jidkii tanaasulka ee dhaqanka ahaan jiray ku laabato. warbixintu waxaa kale oo ay xustay in daruuro hubanti la'aan ah ay dul hooganayso arrimaha siyaasadda Somalilan taasoo u gudbi karta xasilooni bulsho haddii khilaafku sii jiitamo. dibadbaxyadii August iyo awooddii dheeraadka ahayd ee xukuumaddu u adeegsatay ayay warbixintu ku sheegtay ifafaalo werwer leh. waxaa kaloo ay warbixintu intaas ku dartay in colaad siyaasadeed iyo mid bulsho oo dhacda ay abuuri karto fursado ay ururada argagixisadu ku soo dhuuntaan. waxaana ay warbixintu leedahay siyaasadda Hargeysa oo colaad isku beddesha waxay keeni kartaa in kooxda Al-Shabaab ee ka soo baxsanaya dagaalka haatan kaga bilowday gobollada dhexe ee Soomaaliya inay u soo qaxaan dhanka Somalilan oo gabaad ka dhigtaan. sidaas darteed warbixintu waxay soo jeedinaysaa in dhinacyada xukuumadda iyo mucaaradku ay ahmiyad ka dhigtaan sidii tubta isfahamka loogu soo noqon lahaa ee jadwalka doorashooyinka ay iskula meel dhigi lahaayeen. warbixinta oo la daabacay 10kii bishan ayaa lagu yidhi inkastoo waqtigu aad u gaaban yahay haddana waa in isfaham laga gaadhaa inta ka horreysa 13 Noofembar. waxaana ay warbixintu xal macquul ah u aragtaa soo jeedintii guddida ganacsatada ee doorashooyinka isku sidkan iyadoo lagu hirgelinayo muddadii 9 bilood ahayd ee ay guddida doorashooyinku sheegeen inay ku qaban karaan doorasho. warbixintu waxay soo jeedisay haddii ismariwaagu sii fogaado in saaxiibada caalamku ay dhexdhexaadin la yimaadaan. waxaana ay warbixintu xustay in faragelin dibadeed laga fiican yahay, sidaas darteedna ay daneeyayaashu dib uga istaageen arrinta taasoo keeni karta in cadaadiskoodu uu xumo dedejiyo. warbixintu waxay leedahay daneeyayaasha dibaddu waa inay u kala dabqaadaan dhinacyada si ay ugu cadaadiyaan inay miiska wadahadalka ku soo laabtaan, isla markaana haddii xaalku sii xumaado wakiil arrimahaas u xil saaran dhexdooda ka doortaan. waxaa kale oo ay diri karaan fariin ay u dhan yihiin oo sheegaysa in haddii 13 Noofembar la gaadho iyadoo aan la gaadhin heshiis loo dhan yahay inay xanibi doonaan wada shaqayntii ay la lahaayeen Somalilan. arrintaasi oo xanibi karta wada shaqayntii dhaqaale iyo nabadgelyo, wada shaqayntii kaalmada difaaca iyo xanibaado la xidhiidha wufuudda heerka sare ee Somalilan. xanibaadahaasi oo aan noqon doonin kuwa saameeya arrimaha bini'aadanimo maadaama abaaro daran haatan ka taagan yihiin geeska Afrika. xitaa haddii ay saddexda xisbi heshiis gaadhaan daneeyayaasha caalamka waxaa laga rabaa inay damaanad qaad ka noqdaan si aanay dhinacyadu dib ugu siiban bartii ay ka soo dhaqaaqeen, ayaa warbixinta lagu yidhi. warbixinta waxaa kale oo ay sheegaysaa in khilaafka haatan jira uu daaha ka fayday baahida ay Somalilan u qabto in dib loo eego nidaamkeeda siyaasadeed iyo in dib u habeyn lagu sameeyo si loo buuxiyo galdaloolooyinka jira ee la xidhiidha doorashooyinka iyo kobcinta hay-adaheeda iyadoo la sameynayo maxkamad dastuuri ah oo madax bannaan. tallaabo kale oo muhiim ah oo hay-adaha dowladeed ee Somalilan lagu sixi karo ayaa warbixintu ku sheegtay dib u habeynta golaha guurtida iyo qeexidda shaqada golahaas iyo in la xadido waqtiga lagu soo dooranayo golaha xiga kuwan imika muddo dhaafay. warbixinta waxaa lagu soo gunaanaday in khilaafka siyaasadeed ee Somalilan uu ku sii siqayo meel aan hadhow waxba laga qaban karin, laakiin wali waqti arrinta lagaga hortago la haysto. sidaas darteedna loo baahan yahay in daneeyayaasha caalamku ay tallaabooyin degdeg ah u qaadaan sidii ay dhinacyada ugu qancin lahaayeen inay gaadhaan isku tanaasul. ugu dambeynna warbixintu waxay tidhi xasiloonidii qaaliga ahayd ee Somalilan
iyo horumarkii siyaasadeed iyo kii dhaqaale ee muddada 30 sano ah la soo gardaadinayay halis bay ku dhowdahay. Cabdifataax Suudi Cabdi, Somali Discovery, Hargeysa.